قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أغبض أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاد ذو حد من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بأصبعيه وقال عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله إلهي عز وجل adduunyadan isagaa ina keenay hal wadana waa laga soo galaa waa dhalmada ثuma الsabiila yasarahu baa ilaahay yidhi qof kastoo adduunyadan jooga dariiqaasuu soo maray waa dariiqa laga yimaado waxa unu qofku adduunyada yimiday isagoo aan waxba wadan aqoonna aan lahayn asbaabta bini aadamku ay ku noolaadaanna aanan wadan hadal aanan garanaynin oo jaahil ah qaraarkaas waa qaraar ilaahay xaggiisa ka yimid in adduunyada dariiqa laga soo galo. qaraarka labaad waxa weeyaan ilaahay caza wajalla uu go-aamiyey in adduunyadan laga baxo oo dariiqa dhimashada la yidhahdo looga baxo. hebel baa dhintay macnaheedu waa hebel baa adduunyadii ka baxay weeyaan. qaraarka saddexaad waxa weeyaan adduunyada marka laga baxayo bini aadamku adduunyada waxba kama qaataan. maalintii adduunyada ay soo galeen siday ku yimaadeen fara madhnaan gacmo madhnaan qaawani magac la-aan sidii buu qofku adduunyada maalintuu ka baxayan uu kaga baxaa. ma maqal baan u malaynayaa qof dhashay oo magacii la dhashay. qof kasta markuu dhashaa magaca loo doondoonaa maxamed u bixi cabdiraxmaan u bixi saciid u bixi saacad u bixi. maalintuu qofka adduunyada dhiman uu ka baxayana magacii loo bixiyey adduunyada loola baxay uu ka hadha magacaas. waxaa laga bilaabaa markuu dhintaba meydka qabrigiisa diyaariya, meydka maskiidka nacashka uga soo qaada, meydka kafanka u soo gooya, meydka ahaan aaskiisa u diyaar garowno, reerkii iyo qaraabadii u yeedha meydka aaskiisa ha loo dareeree. magaciisi la hadal qaadi maayo. waddankan jabuuti masaajid ku yaalla magaalada bartamaheega masjid xamuudi baa la yidhahda masaajidkan idaacadda laga addimo weeyaan. ninkii dhisay nin xadaramya buu ahaa oo saalixa oo aqaladii u lahaay oo dhan waqfi buu u bixiyey markuu dhimanayay. waxaa laga sheegay maalintuu dhimanayay gacanta kafka ii banaaneeya buuhi ii banaaneeya. maxaad uga jeedaa baa lagu yidhi waxaan uga jeedaa buuhi caamada ayaan tusinayaa in adduunyada aanan waxba laga qaadan. sidii lagu yimiday unbaa adduunyada loogaga baxaa. laakiin qofka waxaa raaca adduunyada ka raaca waa camalkiisa. camalkaasi ama ha samaado ama ha xumaado. adduunyadana ilaahay caza wajalla bini aadamka wuxuu u keenay inay adduunyada camiraan maaha, inay adduunyada dhisaan ay wax ku beeriyaan maaha, in adduunyadan ay wax ku daraan maaha. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi innaa naxnu nariثu اlarda waman calayha wa ilayna yurjacuun baa ilaahay yidhi. arlada korkeega waxaa yaalla annakaa dhexli doonna baa ilaahay yidhi. ilaahay waxba ku fali maayo daarahan iyo dukaanadan iyo warshadahan iyo diyaaradahan iyo caasimadahan adduunyada ka dhisane waan baabi'inaynaa weeyaan. waxba ku fali mayna, waan baabi'inaynaa, waan masaxaynaa baa ilaahay leeyahay. kuwa adduunyadan camiraya ee dhisaya ee dhaqaya ee dhalaya ee fikiraya ee dhismahayga ka fikirayana iyagoo qaaqaawan oo sidai adduunyada ku yimaadeen maalintii dhasheen ay u qaawanaayeen ayay adduunyada kaga soo baxayaan ee noogu soo noqon doonaan baa ilaahay yidhi.
marka adduunyada qofka laba shay mid baa ka raaca ama amal wanaagsan baa adduunyada ka raaci ama amal xun baa qofka adduunyada ka raaci nabigeena calayhi salaatu wasalaam saxaabadu way weydiiyeen man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah dadka qofkeebaa ugu caqli badan uguna karaamo badan nebi allow noo sheeg waxau nebigu yidhi akharuhum dikran lilmowt dadka inta badan geerida iyo dhimashada xasuusanaya ayaa dadka ugu caqli badan buu rasuulku yidhi wa ashadduhum isticdaadan lilmowti qabla nusuulihi inta mowtku ku soo degina waa kuwa inta badan aakhire iyo geerida u diyaar garoobaya ulaa'ika hum lakyaas dadkaasaa caqli badan buu nebigu yidhi dahabuu bisharafi اdunya wa karaamati alaakhira sharaftii adduunyada taalla iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam caaqilku waa kaas inta aynan dhiman ayay dhimashada u diyaar garoobayaan maxay diyaarsanayaan marka asbaabtay diyaarsanayaan maxay tahay iimaan bay diyaarsanayaan acmaal bay diyaarsanayaan diin bay diyaarsanayaan tarju الnajaata walam tasluk طariiqataha faina الsafiinaةa laa tajri calى اlyabasi rukuubuka calى الnacshi yunsiika calى ma kunta tarkabu min bagli wamin farasin yowma alqiyaamati laa maalu walaa waladu wadamatu اlqabri tunsi laylaة اlcursi waxay diyaarsanayaan iimaan bay diyaarsanayaan qofku doon badda bilaa doon ma mari karo aakhirana qofku hadduu ku dhaco isagoon iyo dunyada ka qaadan taqwada iyo iimaan iyo alla ka cabsi oo ilaahay abuuray cilaaqo fiican aan la yeelan waanan yidhi badweyntaa baan ku marayaa maaragtaane lug oo bilaa doon baan badweynta marayaa ma mari karaa ma mari kara nacashka maalinta lagu saaro wuxuu ku ilowsiin doonaa faraskaagii iyo gaadhigii laanguruusarkii iyo sariirihii qaaliga ahaa aad ku raaxaysanaysay baad ku iloobi doontaa yowma alqiyaamati laa maalun walaa waladun maalinta qiyaamahana kii maal badan lahaa maalkiisu anfici maayo kii qabiil laandheeraha ka dhashay qabiilkiisu anfici maayo kii awlaad badan lahaa awlaaddiisu anfici mayso wadammatu lqabri tunsi laylata alcursi mar allii marka qofka qabriga la dhiga buu rasuulku noo sheegay xadiis kale qabrigu sidaa buu iskugu yimaadaa deedna feedhaha qofka ayaa sidaa isku dhaafa haddii qabriga isku imaadkiisa nin ka badbaadi lahaa buu nebigu yidhi sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam atadruuna man huwa sacad waa ninkii geeridiisa maalintuu adduunyada ka intiqaalay carshiga raxmaanku u gariiray faraxan liquduumihi imaadkuu adduunyada ka tegey bixidda sacad uu maalintii adduunyada uu ka baxay ayaa ilaahay jalla wacalaa carshigiisa raxmaanka u dhaqaaqay farxad daraaddeed jibriil baa soo dhaadhaco nebiga u sheegay oo yidhi nin asxaabtaada ka mid ah ayaa go'ay oo ahlu samuhuna ay ku bishaaraysanayaan imaadku adduunyadii ka yimiday markaa buu nebigu sara kuxuu yidhi yaa jibriil sacad binu mucaad baan u malayn buu yidhi inuu go'ay deedna uu soo degdegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saxaabada rasuulka kabihii ay gashanayn ay ka go'een markaasay nebiga soo gaadheen markaasay dhaha yaa rasuul allah socodka waa nagu daalisee markaa buu nebigu yidhi haa waa nigu daaliyey sidii xantalo malaa'igtu ay ugu maydhay inay sacadna hortay u maydho ayaan ka cabsoonayo inaan sacad gacantayda ku maydhaan usoo degdegayay buu rasuulku yidhi waxauna jibriil ii sheegay buu yidhi carshiga raxmaanku faraxan isagoo ku faraxsan imaadka sacadu adduunyadii ka yimiday inuu carshiga raxmaanku u gariiray ayuu jibriil ii sheegay buu rasuulku yidhi markii janaasadii la soo saaray la qaaday bay munaafiqiintu yidhaahdeen maydkan fududa markaasuu nebigu yidhi ha odhanina sidaa war ma haysaan idinkuye 70,000 oo malag ayaa maanta arlada u soo daadegay maanta ka horna malaa'igtaasi arlada maynan iman sacad binu mucaad janaasadiisa ka soo qayb galana weynila sidaa buu rasuulku yidhi markii qabriga la dhigana nebigu wuxuu leeyahay qabriga isku imaadkiisa haddii shaksi ka badbaadi lahaa sacad binu mucaad baa ka badbaadi lahaa buu rasuulku yidhi wadammatu lqabri tunsi laylata alcursi habeenka u horraysay zafaafka waa habeen taariikhda ku qoran weeyaan habeenka u horraysay nin kastoo dhallinyaraa oo gabadhiisa zawjadiisa xalaasha uu la aqalgalay iskugu horreeyeen habeenkaa waa habeen taariikhiya weyn lama iloobo laakiin isku imaadka qabrigu isku imanaya marka u horrayse lagu dhigo habeenkaasaa lagu halmaamaa buuhi ninka shaacirku aaway shucuurtaa iyo dareenkaasi maanta وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه
dinnuurayn markuu qabuuraha dul yimaado ilmadu garhkiisa qoyn jirtay ilaa laabtiisa waxaa la yidhi yaa cusmaan jannada iyo naarta ayaa laga sheekeeyaa ma oydida qabriga markaad dul timaadda maxaa loo oydaa baa lagu yidhi waxa uu nebigu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi qabrigu waa aqalka aqallada adduunyada ugu dambeeya weeyaan waana aqalka aqallada aakhira ugu horreeya halkaa ninka ku nabadgalana nabadgelyadii runta u dambaysa buu rasuulku yidhi halkaa ninka lagu cadaabana cadaabkii weynaa baa u dambeeya buu rasuulku yidhi cusmaan radia allaahu canhu ardaah waa saxaabigii jaliilka ahaa ee adduunyada ilaahay ku imtixaamay loo sheegay in la imtixaamaya welibana iska sabray ajiib beertii nebigu uu ku jiray buu albaabka loo garaacay nebiga abaa muusa alashcari baa iridda taagnaa markaasuu nebiga u sheegu ya rasuul albaabka waxaa garaacaya abibakar markaa buu nebigu uhi soo gal ka dhe abubakar jannana ugu bishaaree haddana abaa muusa halkii buu fadhiistay haddana waa la garaacay waayo waa cumar waa kuu soo idan qaadiya u kaadiya yaa rasuulallah cumar baa albaabka jooga soo gal ka dhe jannana u bishaaree haddana waa la garaacay yaa rasuulallah waa cusmaan baa albaabka taagan u bishaaree janno balaayaha siibi doontana u bishaaree buu rasuulku yidhi markii loo sheegay la yidhi nebigu jannana uu kugu bishaaraynayaa adduunyadana balaayo iyo masiiba kugu dhici doonta wuxuu ku jawaabay allahu lmustacaan aad safka hore ku wada tukataan ama mid meelahaas ka barjeeyo qaraabadiinna hadduu laba jeer ku yidhaahdo warniyo manaan baan kugu arkado baabur kula qallime ka warran waxaad odhan war adu noloshidaad ka xuntay daa'i karqabaad he soo ma waad ka racabsan waa mid meelahaas ka barjeeyo kaafila oo masaajidada iyo diintii ilaahay cilaaqa la lahayn hadduu laba jeer riyaxun kuu sheegaad saa u nixi od sidaa u qarqari od rucbaba kuu dhacaya muxamed calayhi salaatu wasalaam saadiqu lmasduuq baa u sheegaya inuu balaaya adduunyada ku asiibi doonto waxa uu leeyahay haddana allahu lmustacaan وهذه فاطمة بنت محمد رضي الله عنها سيدة نساء هذه الأمة في الجنة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ونبي قد حفظيو أي فاطمة النبي أصوغ شيء ويكفر يستي ويدنكتي udhunkada nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii markaasuu kaalay faaduma arrinbaan kuu sheegay dhegtu wax ugu sheegay waxay tidhi waan lilmeeye lilmaa ka daadatay faaduma caaisha arkaysa umma almu'miniin radia allaahu canha markaa buu nebigu yidhi haddana kaale faaduma arrin kalean kuu sheegay dhegtu wax kale ugu sheegay isla markiiba faaduma haddana way qosashay way farxday caaisha maalin dambe u yeedhay oo tidhi arrintii maalintaadii aabbahayni dhex martay eed marna ka oyday marna aad ku farxday ii sheeg markaa bay tidhi hooyo kuu sheegi maayo sirtaas aniga iyo nebigee naga dhexayso kuuma sheegayo walaakiin caaisha may halmaamine markii nebigu calayhi salaatu wasalaam adduunyada uu ka intiqaalay ayay maalin u yeedhay ka tidhi maadaamuu nebigii adduunyada ka intiqaalay sirtii adiga nebiga naga dhexaysa maanta inaad sheegto way kuu bannaantahe ii sheeg markaasay tidhi hadda waan kuu sheegayaa arrin sirta u horrayse ka lilmeeye waxay ahayd waxa uu ii sheegay geeridiisuu ii sheegay inay dhowdahay deedna waan ooye bay tidhi oo intaad igu arkayseen sirta labaaduu ii sheegeen ku farxay waxay ahayd wuxuu igu yidhi ha ooyin faadumay aamus miyaanad raalli ku ahayn haweenka ummadda nebi maxamed ee jannada galaaya gabadha ugu darajo sarraysa oo ugu barwaaqaysan in ilaahay kaa dhiga miyaanad raalli ka ahayn raalli baan ahay tidhi riwaayad kalena wuxuu nebigu ku yidhi ha ooyina aamus faadumay ehelkayga qofka dhimashada igu soo xiga oo adiga aamus buu igu yidhi deedna waan farxay bay tidhi qof dhimashadiisii loo sheego farxaya ka warramay intuu diyaar garoobay qofkaas hishaam ibn cabdilmalik ayaa u yeedhay abu xaazim yaziid alraqaashi wuxuu yidhi su-aal baan ku weydiin bu yidhi ya sheekh maa lanaa nakrahu lmowt haddaan annagu boqorro aan nahay maxaan dhimashada u karaxnaa buu yidhi dhimashada waan ka cabsannaaye
zamankaas waa taabicu taabiciintii waa quruntii hore weeyaan madaxda unbaa nolosha adduunyada jeclayde caamada muslimiintu aakhirada inay tagaan bay jeclaayeen maanta zamankeenna faqiirka aan gurigiisa caawa waxba aanan oolin inuu aakhira taga diyaar ma u yahay faqiir xataa quuta alyawm aan haysan haddii la yidhahda aakhira diyaar ma u tahay mayba odhan inteen halkaa fadhiday masaajidka joogta haddii halkaa hadda malag isu taga malag oo yidhahda intiinaas ilaahay raalli buu iniga noqday albaabadii jannadana waa laynii furay ayaa u diyaaray imikadaa inuu gala hadii la yidhaha ka warrama wuxuu yidhi abu xaasim baa yidhi waxaad dhimashada u karhaysaan anaa kuu jawaabay haye adduunyadan ayaad camirteen oo aad qurxiseen aakhiradiina waad iska kharribteen oo waad baabi'iseen marka daarta aad qurxisateen aad camirteen inaad ka tagtaan daar aanan waxba iniga dhisnayn oo niga baaba'san oo niga hallowsan inaad u guurtaan dee oggolaani maysaan buu ku yidhi dadku goormay aakhirada jeclaanayaan goormay la kulanka ilaahay jeclaanayaan waa marka dadka acmaali ka horrayso waa marka sahay ay ka horrayso abu dar baa odhan jiray saddex baan adduunyada ugu jecelaha dadkuna way karhaan dhimashada iyo faqriga iyo bugtaanta saddexdaa dadkoo dhan way dhibsadaan aniguna waan jecelahay buu yidhi maxaad la jeceshahay baa lagu yidhi oo waxaan la jecelahay faqriga waa tawaaduc buu yidhi tawaaduc baa laga helaa faqriga xanuunka waxaan la jecelahay waa dembi dhaaf kullamaa qofka mu'minku xanuunsadaba dembi baa laga dhaafaa dhimashadana waxaan la jecelahay maad garanaysaan buu yidhi maya noo sheeg la kulanka rabbigay baan jecelahay buu yidhi laana dadkaasi waxbay qadimteen iyaku maalintuu dhimanaya abu dar cidla cad buu keligii ku dhintay meesha ribda la yidhaah xaaskiisii buu u yeedhay isagoo sankaraada way ku dul oyday markaasuu ku yidhi naa maxaad la ooyeysaa markaasay ku tidhi kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan kuu noqotona kuma hayo markaasuu ku yidhi dhegayso halkaa u bax tuurkaa u bax tuurkaa u bax buu ka yidhi safar jamaaca mu'miniina soo mari doontee kuwaaba aniga i aasi doonee iigu yeedh buu ka yidhi markaasay ku tidhi xaggee dad aan ka arkaa bay tidhi xaggee dad ka soo maraan xilligan jidka xaajigii xajka ka noqonayna uu go'ay haddee toole oo xajkiina mar horaa laga noqdee dadka dariiqa soo marayaad sheegaysa waa dadkee bay ku tidhi nayaa i dhegaysa buu yidhi koox anigu aan ka mid ahay annagoo masjiidka dhex fadhina oo xalaqad fadhina ayuu nebigu nagu soo baxo wuxuu yidhi mid baa iniga mida ininka keligii cidlo ku dhimani doona keligii buu cidlo ku dhimani doonaa aaskiisana jamaacad muslimiin oo mu'miniina ayaa ka qayb geli doonta raggii maalintaa aan la fadhiyey nin kasta uu dhintay nin magaaluu ku dhintay nin tuuluu ku dhintay nin reerkiisiibuu ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nebigu sheegay ee jamaacadda mu'miniintu aaskiisa ka qayb geli doonto waa anige ordoo tuurka u baxo jamaacaddii nebigu sheegay baa soo mari doontay iigu yeedh buu ka yidhi bal sida hadalka nebiga u rumaysan yihiin dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhexeeya waa yaqiin khabarka nebi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkii boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkii boqol ninkii nebigu uu sheegay buu yidhi waa aniga ee cidlada ku dhimanaya raggii kaleo dhan way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkoogay ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa anige jamaacaddu nebigu sheegayba aaskayga ka qaybgeli doontee halkaa u baxoo joogsa buu yidhi jamaacaddii baad arki doontaaye isaguna sankaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xaggaa iyo xaggaa wax ka soo socday eegtaa haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saartaa haddana way ku noqotaa siday u noqnoqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii bay markaa sidaa u tidhi baa la yidhi markaa bay soo leexdeen haweenay bay arkeen buurta dul taagan waxay dhi maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidlo ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceenay idhahdeen
nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidlo ku dhimanaya markaasay abudar oo sakaraada u yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen uu indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yidhi bishaaraysta bishaaraysta mu'miniin baa tiinoo nebiga ina sii sheegay buu yidhi xadiiskii nebigu markii buu u bishaareeyey ta kalena wuxuu yidhi dhegaysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ixtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan addoonkaasi naar ma arkee waa niga dhimanayaa maanta oo cidlaa ku dhimanaya nebigaa i sheegee hay ooyine iska sabr buu ku yidhi arrinka saddexaadee nii sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan haddaan haysto iyadaa kafan layga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan hadday haysana maradaabaa kafan layga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhegaysta walaalahayow raggiina meeshaa maraya dowladda islaamka nin u soo shaqeeya hadduu inigu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigina buuhi kafan ugama barin dharkaas muxuu dhowrayaa xaaraantuu ka dhowrayaa jidhkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadkaa uu aakhiro la tegaayo inuu ka borooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkeen maraynaa waxaan ku cuninba waa la cunaa ilaa wax walba cunta soomaaliya gaajada unbaa xaaraana bay ku odhanayaan gaajada unbaa xaaraana kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi jidh kastoo xaaraan ku kora buu nebigu yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta buu rasuulku yidhi xaaraantu iska daa adiga ilaa oo shahwadaaday taaiirisaa shahwadaada way saamayn ubadkaaga xaaraantu taqwaduna awlaadday iska soo baxdaa waracu awlaad buu ka soo baxaa lidaalika nin boqora quruntii hore ah ayaa qasrigiisa soo gelay isagoo walwalsan xaaskiisii baa ku tiri maxaa ku helay boqor muslima buu ahaa mujaahid ah dowladihii ka dhisnaa bay ahayd bilaad alhindi wasindi markaasuu yidhi inankeenii aan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka ahaa ayaa la ii soo sheegay in la soo jebiyo laga soo adkaaday markaasay tiri wada gaadhsiinaya u nasteexaynaya muuse iyo haaruun labadaasaa ducaad ahayd baa la yidhi lidaalika muusa calayh salaam arrintii markay adkaatay wuxuu yidhi dhegaysta maaha saad moodaysaan arrinku qaala kallaa ina maciya rabbii sayahdiin moxamed nebigeennu muxuu yidhi sal lla ly slam markay abubakar iyo nebigu godka galeen muxuu yidhi id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha dhahda de ina allaha macanaa xadiiskana maa danuka ya abaa bakrin biinayni allahu haaliثuhumaa muuse wuxuu yidhi maciya aniga gaar waxaa ila jira ilaahay gaar buu ilaahay iila jiraa walaakiin muxamed wuxuu leeyahay ha walwalin ha murugoon abubakarow ilaahay baa macayna labadeenna abubakar sidiiq radia allahu canhu waayo nebiguu la socdaa nebiguu la dadaalayaa nebiguu la jawlaynayaa nebiguu kaxayn jiray suuqa magaalada maka mawsim alxaj 10 sano carabtu markay soo xajiyaan ayuu nebigu odhan jiray abubakarow quraysh haddayna maqli weyday carabtaa xaj ka timid ee laga yaaba risaaladan inay nala fahmaane ikaxeey oo iigey buu odhan jiray markaasuu abubakar hor socon jiro o odhan jiray waa rasuul ilaahay soo diree hadalkiisa dhegaysta buu odhan jiray markaa buu nebigu odhan jiray man yuwiinii man yansuranii xataa uballiqa risaalata rabbii walahu ljanna ayaa ii soo dhowaynaya ayaa dalkiisa ii geysanaya ayaa ii gargaaraya ayaa cadowga iga difaacaya ayaa shaqadan ilaahay ii soo dhiibay igu gargaaraya oon janno ugu ballan qaado aniguna 10 sanawaat abubakr sidiiq radia allahu canhu dhaqaalihii uu haysto o dhan wuxuu ku bixiyey nebiga alayh slat slam xataa fii bacd ariwaayaat jibriil baa u yimid nebiga wuxuu arkay abubakar oo qamiiskiisu karkarma leeya waa maxay yaa muxamed saaxiibka abubakar dharkiisii uu googaye yaa jibriil abubakar dhaqaalihiisii oo dhan intaanan maka la furan ka hor ayuu aniga daraaddeed ku bixiyey buu yidhi
hataa maalin cumar iyo abubakar baa isku dhacay madiine markii la yimidee dowladdu ballaaratay markaasaa nebiga loo sheegay markaabuu nebigu xanaaqay mambarkuu nebigu ka kaco wuxuu yidhi waryaaday dhegaysta nin kastoo ininka inaga mida diinta islaamka maalintaan iniigu yeedhay waad ka joogsateen waad ka soo fikirayseen waan ka soo fikiri baad igu tidhaahdeen abubakar maalintaan ku idhi ilaahay baa isoo diro rasuul baan ahay run baad sheegtay buu iga yidhi aad u run baad sheegtay markaasuu lacagtiisii siduu abubakar xoolihiisa u isticmaalayo ayaan aniguna u isticmaalayo dhaqaalihiisii buu ila sibay buu rasuulku yidhi ee abubakar ma ii daynaysaa maalinkii godka carabi eryanaysayna godka aan galayna isagaa saaxiib ila ahaa qiyaamahana xawdka dusheedana abubakar isagaa ila saaxiibe lidaalika muusa calayh salaam wuxuu yidhi aniga rabbigay baa macayga khaas maciyadaas laanna abubakar sidiiqna nebigu wuxuu yidhi maxaad u malaynaysaa abubakarow inayna arkaan iska daaye laba ilaahay saddexayna ii arki karaa waa tarbiyad nebi muusena bad baa loo kala dillaaciyey oo la mariyey nebi maxamedna calayh salaatu wasalaam min maka ilaa madiinu nebigu lugeeyey muusena bad baa loo dillaaciyey bad usha badda ku dhifaa laga yidhi waa lagu badbaadiyey reer bani israa'iil dariiqa isla dariiqa reer bani israa'iil ay ku badbaadeen ayaa fircoon iyo ciidankiisina lagu baabiyey gebigoogiiba nebi maxamedna may u lugeeyey rasuulkeennu waa la eryaday god buu galay raadkiisii baa la daba guray 29 yowman buu nebigu lugaynayey nebi muusena baddaa loo dillaaciyey nebi maxamedna waa la lugaysiiyey farqiga u dhexeeya waa maxay ilaahay muunan karayn inuu nebiga ka dhex qaada maka uu madiine geeyo nebigoo maka jooga ayaa halkii uu jiifay intoo laga qaada nebiga la geeyey masjid alaqsa min masjid alaqsa ila samaa'i dunya min samaa'i dunya ila athaniya athalitha araabica khamisa saabica ila sidrati almuntaha halkii dhinaca dhulka uu ku hayay oo weli diiran ayaa nebiga la soo celiyey maalintii hijradana maxaa nebiga ilaahay u daalinayay markaas xikmadda ku jirta maxay tahay zaadulmicaad buu kaga hadlay ibn qayyim aljawsi raximahullah xikmadda ku jirta hijrada axkaam baa ummadda u soo degtay ummaddaa lagu tarbiyadaynayey asbaabta inaynan ka tegin muslimiintu ayaa la barayaa asbaabta in la qaato asbaabta godka maxaa nebiga gelinayey asbaabta inay ummaddu qaadataa la doonayaa asbaabta qaado laakiin asbaabta ha tala saaran asbaabta oo la qaato oo sunnadii nebiga iqtidaa'an binnebiyi loo qaataa waa shareecadda islaamka ilaahay yidhi nacam waa diinta ilaahay naga doona inaan qaadanno asbaabta oo la ictimaadaana ilaahay ma ogolo waa gaalnimo maanta muslimiin badan waxay ictimaadayaan asbaabta asbaab bilaa asbaab lama noolaan karo ku odhan ku salliya rasuulku maa nigu dheereeyey ya haddaan la dheereeyey sabra dee ha ka kicinay salaadu takbiirat alixraam bay ka bilaabantaa halkay ku dhammaataa tasliim soo ma tasliimtii oon la gaadhin hadduu qofka tukanaya maamuumku hadduu ka daba kaca ka warramo ka baxa salaadda ya batalat salaatuhu fa in sha allah majaalistan diiniga adaabiyaadka adaabta ha la ilaaliyo majaalisteennan taqaarabu bay ka bilaabataa waxay ku dhammaataa subxaanaka allahuma wabixamdika in sha allah waan sabraynaa in sha allah in sha allah dhahda waan fadhiyaynaa soo maa markaad igu dhahda sheekhow naga soo gaabi dhahda anna waan soo gaabin markaas leanna kharashi ma siinaysaan ilahay darti baan u hadlayaa idinkuna ilahay darti baa u dhegaysanaysaan kulliga waa kala macaashaynaa soo maha allah ina barakeeyo maa sha allah way naga muuqataa khayrka saa u jeceshay saa u fadhidaan halkee soconnay godkuu galay nebigu abubakar baa godka ku dhaadhacay yaa rasuulla ii kaadi anigaa kaa eegaye markaasuu ka fiiriyey nebiga sal alla alay slam cajiib waa hijran dadka nebiga la socdana daraja ilaahay ku siinaya qur-aanku waa maalintaa dadkao dhan buu canaantay ilaahay baa la yidhi gargaari la'aanta nebiga u gargaari waayeen abubakarna ilaahay jalla wacala si gaar u ammaanay maalintaas haddana godkii buu ka baxay rasuulku way lugeeyeen suraaqata binu maalik ninka la yidhaah
ayaa raadkii nebiga soo guray deedna nebigii buu soo gaadhaa la yidhi intii la socday mar abubakar nebiga xagga dambuu ka mara mar xagga horuu ka mara mar xagga dambuu ka mara mar xagga horuu ka mara markaa buu nebigu yidhi abubakar marna maxaad iiga horraysaa marna maxaad iiga dambaysaa yaa rasuulallah xagga dambe markaa kaaga cabsadana waan kaa dambeeyaa waxaan idhahdaa cadowga nebiga xagga dambe kaga imanaya intay nebiga wax yeelayn adiga horta ha wax ku yeelayaan xagga hore markaan kaaga cabsadana waa kaa hormaraa markaabaa nebigu calayhi salatu salaam abubakar uu la yaabay deedna sidii ay u socdeen ayaa ninka suraaqata binu maalik la yidhaah ayaa soo gaadhay nebigii abubakar baa la yidhi waa nin loo ballan qaaday 100 halaad imse halaad war imse halaad 100 halaad mar ali markuu arkay buu burqaamay seeftii buu galka ka saaray abubakar baa yidhi yaa rasuul allah waa layna soo gaadhay markaa buu nebigu yidhi ha cabsan abubakar oo ilaahay baa macene allahuma kfiniihim bima shi'ta allahuma kfinaa bima shi'ta cadowgaana soo haleelay sidaa adigu aad doonto ilaahw nagaga qaba buu rasuulku yidhi daabaddii uu fuushanaa faraskiisii baa dhulku qabtay baa la yidhi ninkii markiiba markaasuu qayliyey muxamadow saasuu u soo eegay nebigu waa noqon dib dambe niga daba iman maayo iga sii daa markaasuu ilaahay u baryay ilaahu ka sii daa faraskii markiiba lugii buu la soo baxay waa nin 100 halaad oo geela loo ballan qaaday 100 laan kursar ka soo qaad haddana uu ka soo daba sii daayay faraskii dadna markaasuu nebi yidhi ilaahu macal isaga qabo buu dhul ow macal isaga qabo ilaa isagiiba dhulku qabtay baa ilaa lugihiisiba dhulka galay markaa uu nebigu soo kala noqday markaasuu haddeetola ninkii wuxuu yidhi dib dambe haddeetola kaaga daba imani maayo cadowga iga dambeeyana waan weecin waan odhanayaa dariiqan cidna ma marin hortaadana geelaygiibaa daaqaye calaamad baan ku siina waxaad doonta ka sii qaado markaa buu nebigu yidhi may uma baahni geelaage keen buu yidhi waxbaan kuu qorayaa soo adduunye ma doonaysid sow aniga waxaad ii daba ordaysaa adduunye jacaylkaama haa keena waxbaan kuu qorayaaye saan buu markaa u soo saaray berigaa saan baa wax lagu qoran jiray wuxuu u qoray nebigu baa la yidhi siwaaraya kisra boqorka kisra carshiga markuu dul fadhiisto kursigiisa boqortooyada gacmo waxa uu lahaa dahab oo halkan yaalla gacmo dahaba labadiisa gacmood buu sidaa markaa u dhex gelinayay xarraga iyo kibir labadaa gacmood uu boqorkaa leeyahay dahabka suraaqata binu maalik baan u qoray buu rasuulku yidhi deedna uu iska socday rasuulku ilaahu dhulka ka sii daa la sii daayo uu iska noqday khalaas saantii buu duuduubtay halkaa buu gashaday haddeetoole cajiib raggaasi carabtu ma og tahay madiinuu makuu iska yimiday quraysh buu ku yidhi war ma arag anu moxamed ma ark waan waaye idaaya madiinuu yimidee u islaamay ninkii wuxuu bilaabay safaradii nebigu galay o dhan inuu la baxo jihaadka haddeetoole yujaahid fii sabiili اllahi caza wajal khilaafata cumar bnu khadaab radia allahu canhu ayaa la keenay siwaaraya kisra boqorkii kisra dowladdii furus maalintii sacd ibnu abi waqaas ciidankiisu maalintay dumiyeen ayaa cali bnu abi aalib iyo cumar oo meel fadhiya magaalada madiine dibaddeeda fadhiya ayaa la soo mariyey baqal baa lagu keenay gacmihii kisra kursigii kisra khasaa'intii kisra oo baqal lagu jiidayo markaasuu cumar bnu khadaab uu yaabo wuxuu yidhi yaa abalxasan ragga dahabka intaa la eg ka keenay furus ee noogu keenay madiine waa rag ammaano leh markaasuu abalxasan baa yidhi annaku iyo kan la yaabi mayna buu yidhi waayo adiga ayaa dhowrsoonaado hantidii ummadda ka dhowrsoonaadee haddii amiirku uunan hagaagin raciyadduna ma hagaagteene islaaxa aad ku arkaysa raciyaddaada adigay kaa bilaabato adiga ayaad karaamadaas kale buu ka yidhi cumarow madaxdii ba hagaagtay wallaahi suma wallaah horumarka ay gaadheen asxaaba muxamed calayhi salatu salaam lama gaadhi karayo taariikhdaas lama gaadhi karayo haddii cid kastoo timaada ma gaadhi karayso abubakar iyo cumar iyo saxaabadii rasuulka halkay gaadheen madaxdiisa cumar markuu talada u dhiibayo 3 buu kula dardaarmi jiray 3 aqalada muslimiinta inay ka sarrayn ha la mid noqdaan albaabadiinu ha furnaadaan cuntada aad cunaysaan ha noqoto muslimiinta qoyska ugu daciifsan cuntaday cunayaan tiinula ha la mid noqoto buu jiray cumar bnu khadaab maantana innaka mar alli markii adduunyadu noo biirto gaadhigaan bedelaynaa oo gurigaan bedelaynaa oo mobeelkaan bedelaynaa oo hadalkaan bedelaynaa oo qayli markay lacagta u biirto ya allah ilaahuna astur
tawaaduc saxaabada rasuulku wixii adduunye ee guryahooga timiday dharkoogii may bedelin aqalladay deganayna may bedelin wallahi may bedelin cumar bin khadaab baa u yeedhay siwaray kisra ay keena ma keenteen ha suraaqata bin maalik baa la u geeyey nebiga u ballan qaaday u geeyey buu yidhi suraaqata bin maalik oo aqalkiisii fadhiya oo cibaadaysanaya ayaa loo keenay gacmihii kisra oo la yidhi waa kan arrintii nebigu ku ballan qaaday qaado markaasuu yidhi kisraba anfici waaye maanuu anfacayaa buu yidhi baytalmaalka muslimiinta dhigoo ummadda siiya buu yidhi innagana maanta adduunyo yar hadday noo timaadda muslimiinta salaaddii bay ka kaxaynaysaa cibaadadii bay ka kaxaynaysaa khayrkii bay ka kaxaynaysaa war adduunyadu qiimo ma leh diinta ayaa qiimo leh salaadda ayaa qiimo leh cilaaqaadka ilaahay aan la leenahay baa qiimo leh walaalayaal waa inaan diinteenna ku qanacnaa maxaa muslimiinta maanta badaha ugu dhammaanayaan iyagoo ashaadanaya kitaabkay ku taallaa arsaaqadda la yidhi oroba iyo maraykan bay taallaa wa fi samaa'i risqukum arsaaqadda dhulka laguma sheegin samadaa lagu sheegay arsaaqadda inay ka timaado majlis uu nebigu fadhiyo ayuu nebigu asxaabta sidaa ku yidhi waxaan arkayaa buu nebigu yidhi madaa'in alciraaq ciidankii muslimiinta oo madaa'in alciraaq furtay oo gabadha shimaa bintu buqayla la yidhaah ee boqorka la dhalatay oo masar madow madaxa ku wadata oo baqasheedii fuushan iyo gabdhihii u khidmaynaya in hareeraha ka socdaan ayaa ciidanka muslimiinta gacantooda soo gashoon arkayaa buu rasuulku yidhi khuraym binu fatik saxaabiga la odhan jiray ayaa sare kacoo yidhi nebi allow ciidankaa maalintaa furanaya madaa'in alciraaq haddaan ka mid noqdo gabadha ay iga hor timaado gabadha aniga hallay siiyey inta goore goortahay imikadan buu yidhi cajiib markaasuu nebigu yidhi adigaa iska le muxuu yidhi adaa iska le buu yidhi gabadhaas raggii ag fadhiya markiiba eegtay markhaatiyo weyaan mogtahay laba ninoo ag fadhiday buu waryaada markhaati ka noqdo haddaba arrinkaas bal sida khabarka nebiga ay ugu kalsoon yihiin dadkaasi eega innagana maanta muslimiintu xaya cala asalaa kuma kalsoono salaaddii baa la addimayaa suuquna waa macmuur maanta xaya cala alfalaax war liibaanta xaggeega u kaaleeya baa la leeyahay salaada liibaan uma arkaye maqaayadda iyo dukaanka uu furan xilligaa ayuu u arkayaa inuu ku liibaanaya xaajadiisa ku daboolayo yaqiinteennu waxay noqotay waxaan arkayno yaqiintoodu waxay hayd hadalka nebiga iyo ilaahay ay ka maqlaan bay ku kalsoonayeen iyagu intaqala nebiyu calayhi salatu wasalaam nebiga adduunyada uu ka intiqaalay saxaabigii arrinkii nebigu maalintaa u ballan qaaday u haystaa abubakar baa taladii ummadda la wareegay khilaafadii cumar binu khadaab baa timiday madaa'inulciraaq baa la galay ciidankii madaa'inulciraaq ku jiray buu ka mid ahaa wallaahi waa halkii nebigu sheegayey buuhi waa taa magaaladu nebigu sheegayey ciidanka khaalid baa wata waa la jebiyey gaaladii gabadhow sideediiya faraskii fuushan masarkii nebigu ku sheegay wadata baqal cad bay fuushan tahay masar madow bay wadataa gabdho u khidmaynayaa la socda khaalid baa loo keenay saxaabigii baa sare kacoo yidhi yaa khaalid hiya liya buu yidhi tan anigaa iskale buu yidhi tan kuma jirta buu yidhi haniimadaad qaybinaysaa tan anaa iskale khaalid baa yaabay see ku yeelatay waryaa ma sunnaha nebigaad khilaafaysaa may tan nebigu aanu ii ballan qaaday buu yidhi goorma maalintii caynkaasuu nebigu ii ballan qaaday wuxuu yidhi kuma siinayo ilaa maragaad la timaadda mooyaane laba nin oo labaduba ay ahaayeen ansaar muxamed baa labadaba la kale odhan jiray labadii nin buu soo kaxeeyey khaalid buu u keenay annagaa ka maraga bay yidhahdeen nebigu inuu ballan qaaday gabadhaas waa hagaaga iska qaaday buu yidhi khalaas khaymadiisii buu la tegey waa gabadh la dhalatay boqor kam gabadha imise barwaaqaysan tahay walaalkeed cabdulmasiix oo markaa sulxi qaatay oo macal ciidankiisii isdhiibay oo jizyadiina oggolaaday ayaa khaalid u tadarrucoo yidhi khaalidow mar haddaan sulxigii qaadannay gabadha walaasha ee boqoradda ii soo celiyey buu yidhi waxaad doontiina lacag waa nisiine khaalid baa yidhi gabadhaa hortay baa la bixiyo nebigaa sii bixiye ninkaa halkaa jooga ayaa gabadhii qaato halkaabay isagaa la wareege isaga la soo heshii markaasuu u yimiday wuxuu gabadhaasaan la dhashay buuhi boqorkii baan ahay waan isdhiibay gabadhaa ii soo celi lacag waxaad doontana sheego markaasuu fikiray uu fikiray uu fikiray wuxuu yidhi 10 min 100 10 imsa waa imsa 10 de kun shilin de wuxuu 10 min 100 keen buulo lacaga
yaabay ninkii markaas 10 miya markaas naam 10 miyaad yaabay ma 10 min boqola ha 10 min boqola gabadha markaa baan ku siin markiiba uu soo saaray lacagtii buu siiyey gabadhii iyo waxay wadato dhan uu ku wareejiyey saxaabadii baa ninkii u timid oo la yidhi lacag intee leeg baad ku furatay gabadha de 10 min boqola ma 10 min boqola ha waa kun weeyaane xisaabinta ka badan inay jirto ma baaqaani buudh anigu xisaabta adduunyada may oqoonin laakiin sida ilaahay wax looga qaatay iyo ku yaqaaneen innaguna maxaa naqaanaa maanta keenna miiga jooga kalkulateer buu ku sitaa jeebadda ka miiga jooga xoolaha leh neefka 70 buu marayaa 35 waa kaadhiga kiradiisii maxay waa ka miiga jooga yaqaan ka miiga jooga yaqaan xisaabta keenna magaalada joogana maxaad u malayn asxaabta rasuulkana xisaab may oqoonin laakiin maxay yaqaaneen iyaku sida ilaahay loo bariyo yaqaaneen sida ilaahay loo raali geliyo yaqaaneen sida ilaahay loogu dhawaado bay yaqaaneen asbaabta ilaahay u dhawaynaysa bay yaqaaneen asbaabta ilaahay ka fogeynaysa bay yaqaaneen waxa ilaahay raali ku noqonayay bay yaqaaneen meesha ilaahay raali ka yahay bay marayeen hadday gacmaha cirka u taagaan ducadooda lama soo celinin iyaka saadarteed muhiimaddu waxa weeyaan adduunyadan ilaahay baana keenay ujeedada laynoo keenay waa inaan adduunyada ka qaadanaa diin dhammaystiran waa inaan garannaa ilaahay maanta intaynu jirnaa nin walba lacag intuu haysto uu garanayaa maanta laakiin inta ilaahay uu jiro ma qiyaasi karayna maanta saxaabada rasuulku way yaqaaneen wallaahi way yaqaaneen way yaqaaneen sacd ibn abi waqaas baa soo galay basra dad meel ku urursan buu arko meel taagan oo nin dhegaysanaya markaa buu sacad ku yidhi maxaad ninka u dhegaysanaysaan muxuu sheegayaa waxaa la yidhi abubakar iyo cumar buu caayayaa ya ma abubakar iyo cumar buu caayo dhegaysanaysaan ha de markaasaa loo baneeyey sacd waryaa buu yidhi maadaa abubakar iyo cumar caayi kara ha waan caayi waxaabay sameeyeen wax iska daldal zindiiq buu ahaa war dadkaas ilaahay baa raalli ka noqday camalka ogina way la tageene ka daa dadka cayda ka dhaaf wuu iska daa ka daa cayda war waan caayi oo dhibaatay noo geysteen oo caynkaasoo markaasuu war cayda waad ka dayn buu yidhi wa ilaa wallaahi haddii kale waan ku habaari buu ka yidhi habaarkayguna dhulka uma dhaca buu yidhi markaasuu yidhi waan ku habaariya uma nebi baa tahay buu yidhi bal habaarkaaga soo sii daa saasuu hadlay sacad bin abi waqaas wuxuu yidhi intuu gacmaha cirka u taagay buu ilaahayow ninka abubakar iyo cumar caayaya inaad abubakar iyo cumar raalli ka noqotayna waan raalli baan ka nahay ilaahay adaa noo sheegay oo nebigaagii baa noo sheegay oo in janno loo bishaareeyey mubashiriin ahaayeen nebigaagii baan dhegahaygaa kaga maqalle jamaca halkaa jooga intay kala dhaqaaqin ilaahu ninka aayad iga tus buu yidhi wuxuu yidhi neef geela oo shilis oo meelay ka timid la garanayn unbaa dhulka sidaa uga soo baxdaa la yidhi dadkii baa sidaa u kala jeexday isagii intay u tagtay sidii harraati ula dhacaysay naftu kamay tegin ilaa naftu ay kaga saartay mooyaane naftii markay gow ka tiri ninkii ayay hashii oroday baa la yidhi waa la daba yaacay geed bay sidaa uga daba wareegtay meelay martayna waa la waayey markaasuu sacad bin abi waqaas yidhi alxamdu lilah ilaaha waxaan ku mahadiyaa buu yidhi hee dadkaasi iyakoo cuqdad abubakar iyo cumar aan u qaadin intay meesha ka dhaqaaqeen baa ku mahadiyaa buu yidhi leanna aayad bay arkeen khalaas inta ilaahay ay u jiraan iyaku way garanayeen iyaku leanna tarbiyadda nebigay ka qaateen alayh salatu salaam diin bay ka qaateen nebiga diin bay ka dhaxleen ilaahay cilaaqadiisay ka dhaxleen maanta muslimiinta caalamka cilaaqadaasaa nagu yar bas wax kasta muslimiintu maanta way haystaan asbaab caalamka asbaabta u badan maanta muslimiinta haysata cadad ahaanna haddii la eega tirada muslimiintu ma yar tahay ma yaro laakiin tayadeennii baa yar maanta saa darteed bay culimmadu leeyihiin ummaddan waxaa loo baahan yahay mar labaad in iimaanka iyo diinta loo jadiidiyo dacwaddu waa laba qaybood
dacwad gaalada loogu talagalay waa dacwatul islaam, dacwadna muslimiinta loogu talagalo waa dacwatul iimaan. gaalada dacwadda loogu talagalay waa maxay? soo islaama waad nabad galaysaan. dacwada muslimiinta loogu talagalay waa maxay? tacaalow nu'min birabbina saaca, kaalaya soo gala masaajida ilaahay saacada rumayne. saa darteed walaalayaal, ilaahay uu na doortay oo diintaasaa ilaahay noo doortay oo muslimiin baa ilaahay naga dhigay, ummaddii nebigaa ilaahay naga dhigay. tacaalow nu'min birabbina saaca, cabdullahi bin rawaxa odhan jiray soo ma? saacad ilahay aan rumayna maxay ka dhigan tahay? iimaankii waad ku dhalatay, islaamnimadu waad ku dhalatay, kaalay fadhiiso iimaankii aakhirada ha ka mudaakaroonay. hadda saacadda iminkaan wada hadlayna iimaanku inooma ziyaadayo, ma ziyaadayo, yasdaad. xalaqat alcilmi haddaad fadhiisato cilmi iyo iimaan iyo taqwad baa kuu ziyaadaya. sidaasoo kale ummadda loo baahan yahay maanta in ummadda iimaanka loo jadiidiyo. jadiduu iimaanakum baa nebigu uhi, iimaankiina jadiidiya, jadiidiya. saxaabadu waxay dhahaan kayfa nujadidu, see iimaanka loo jadiidiyaa? akiruu min qawli lam yaqul, nebigu ma odhan dikri, wuxuu ihi qowl. waman axsanu qawlan, qowl haddaad maqasho waa dacwad. akiruu min qawli laa ilaaha ila allah, dadka iimaanka ugu yeedha, dadka aakhirada ugu yeedha, dadka ilaahay uga sheekeeya, dadka manfacada diintu ay leedahay uga sheekeeya, dadka camalka saalixa uga sheekeeya, dadka qiimaha salaadu leedahay uga sheekeeya. maanta meel kasta oo aad marto waxaa lagu hadalhayaa maanta manfacada adduunyadu ay leedahay. soomaali innanka khaasa haddaan nahay, islaamnimada iyo qabiilka midkii agteenna power weyn maanta ya dadka agtooda midkee ku weyn? waada muslena mala arrintaas wayna taabatay. waa sognahay deeda wada soomaali dhega dheer baan nahe, ilaa anna meel aniguna jarmal ma yihi ninkum baan iga madahe. ficilkeeni xataa wuxuu noqday qabyaalada inuu ku ficiltamo qofka muslimka. qabiil inuu hadlo, qabiil inuu dhaqaalaha u bixiyo, qabiilkiisa inuu dacwiyo, qabiilkiisa inuu faaniyo. xataa majlis baad arkaysaa qabiil loo fadhiya waddankeena. islaamnimada la dooni wax walba inay kaala weynaato. nin reer madiina ayaa soo galay masjidkii rasuulkeenna sal lla alay slam. bilaal iyo salmaan oo fadhiya buu arkay. wuxuu uhi kuwan maxaa looga baahan yahay buuhi haddee toole. hadalku ku hadla dhegayso. ninkan muxamed yuu leeyay, ninkan muxamed qoomkiisii buu helay haddee toole, carab baa u kacday. kuwan maxaa looga baahan yahay haddee toole? mucaad binu jabal baa maqlay hadalka. halkaasuu mucaad ninkii qabtay, markaasuu nebiga u keenay. markaasuu mucaad weliba u sheegu yidhi, ninkani sidaa iyo sidaa buu yidhi rasuul allah. markaasaa nebiga wejigiisiiba bedelmay, mambarkuu nebigu fuulay, dadkii oo dhan baa loo wada yeedhay. markaa buu nebigu yidhi dhegaysta, aabbihiin waa aadam calayhi asalaam, hooyadiinna waa xawaa. luqada carabiguna aabbihii hooyaynima buu rasuulku yidhi. man takallama biha fahuwa carabiyun baa nebigu yidhi, ninka luqada carabiga bartee ku hadla waa carabi. hadalkaa markuu nebigu yidhi, khudbaddii buu joojiyey. mucaad binu jabal weli ninkii sidaa buu hayaa. markaasuu yidhi yaa rasuul allah, ninkan maxaan ka yeelnaa? markaa buu nebigu yidhi daxun linnaar, yaa mucaad, ninkan naartaa kaaga filana naarta u daa buu rasuulku ka yidhi. waa nin masjidkii nebiga jooga la soco. wuxuu yidhi naartaa kaaga filane naarta u dhaaf. maalintii nebigeennu adduunyada ka intiqaalay, carabtii ridowday ee diinta ka noqotay ayuu ka mid ahaa. isagoo murtadana ninkii waa la dilay baa la yidhi. ajiib, hadalkii nebigaas yaa xaqiiqoobay. maadaamu hadal wuxuu ku hadlay ummadda midnimadeeda kala geynaya oo cunsuriyad iyo qabyaalad abuuraya, hadalkaabuu ku mutaystay ninkaas inuu naar ku dambaynayo. innagana maanta qaadhaankaan bixinaa soo maha, qaadhaanka reerka. war qaadhaankii reerka waxaa la doonayaa maanta, qaadhaankii diintaa la gurayaa maanta. yaa saa u diyaara? insha allah na dhahada. qaadhaanka diinta diyaar ma u tihiin? diinta haddaan maalkeenna, wakhtigeenna, salaaxiyaddeenna, cilmigeenna, cimrigeenna, caqligeenna, raganimadeenna, diinta culummada keliya lagu dayn maayo shaqadeeda. caamada waxaa la doonaya diinta inay ka shaqayso. reemihigu diinta inay ka shaqeeyaan baa la doonayaa. tujaartu diinta inay ka shaqeeyaan baa la doonayaa. quraadu diinta inay ka shaqeeyaan baa la doonayaa. imaamadu diinta inay ka shaqeeyaan baa la doonayaa. mu'adiniintu diinta inay ka shaqeeyaan baa la doonayaa.
ummadan waa ummad daran weeyaan waa ummad daran oo ilaahay baa daran ummadan maanta xilkii diinta markaan u daynay inay culimada umma diinta ka mas'uula oo iyagu waxa sheegaan caamadii waxay ku dhaceen inay 24 saac qabiil u ficiltamaan qabiil qaaraanka u ururiyaan qabiil u hadlaan qabiil u fadhiistaan qabiil ka sheekeeyaan qabiil u ficiltamaan qabiil isku jeclaadaan qabiilad isku dirraan qabiil u urursadaan waddankeena maxaa dumiyey qabiil baa dumiyey qabiil baa halkaa ina dhigay waxaa dad badaha ku gurmaya maanta bilowgii waxay ka bilaabantay waa qabyaalad waxaas oo dhan dhibtayna soo gaadho dhan asaaskeegu waa qabyaalad weeyaan waana shayga keliya yuhuuddu ay fikireen ay yidhaahdeen islaamnimada muslimiintu maxay ku bedelan karaan qabyaalad bay ku bedelan karaan deedna islaamnimada halkeegii qabiil baa lainoo geliyey waa la soo kala googooyey carab deedna qoys qoys baa maanta ummaddii loo kala googoynaya qoys qoys inaan fikirna laynaga doonaya walaalayaal oon murugoono xaaladda maanta ummaddu ku jirto waa xaalad laga murugoodo weeyaan yaa ayuha almuzammil aayadihii u horreeyey nabigeena ku soo degay ahaayeen aayad waxaa ku jirta inna laka fi nahaari sabxan tawiila makay ku soo degtay aayaddaas magaalada maka bad ma le nebiga waxaa laleeyahay maalintii waxaa ku ekaatay dabbaal dheer baa ku ekaatay xaguu dabbaalanaya nebigu maka bad ma le dadka dhex dabbaala weeyaan dhex soco shaksi ka khayr badan caalamka nebi maxamed muu soo maray ma soo mari doonaa may shaksiga karaamadda ilaahay siiyey khayrka ilaahay siiyey ma in dadku u tagaa ayaa munaasaba mise waa in loo yimaado isagoo la qadariyo ya waa in loo yimaado soo maaha walaakiin nebi maxamed wuxuu ka bilaabay inuu ummadda isagu u tago inuu isagu dhulkas dhigo in isaga dhagax lagu aaco in isaga wejigiisa shariifka qandhuuf lagaga tufo in isaga cay aan u qalmin lagu caayo la yidhaha majnuun mucallamun majnuun ma jawaabaya nebigu ilaahay baa u jawaaboo yidhi ma anta binicmati rabbika bimajnuun shaacir bay yidhaahdeen ilaahay baa u jawaaboo yidhi wamaa huwa biqawli shaacirin kaahin bay yidhaahdeen ilaahay baa jawaaboo yidhi wamaa huwa biqawli kaahinin way hadleen lasta mursalan bay yidhaahdeen ilaahay baa jawaaboo yidhi innaka la min almursaliin aliyadda nebigay aliyadaynayaan nebigu ma jawaabayo ayaa u jawaabaya ilaahay baa nebiga difaacaya wallahu yacsimuka min annaas shaksi ka khayr badan adduunyada ma soo marin rasuulkeenna mana soo marayo aayaddaa markay soo degteenna macnaheegu waa maxay waa dabbaal reer bari baa tihiinoo badda waa taqaanaan ninka berriga lugaynaya meeshuu u socday hadduunan gaadhin ee cedeedu qabato geedka ugu har fiican buu ku leexdaa oo ku nastaa soo saama laakiin ninka dabbaalanaya badweyn ku jira ka warrama ma joojin karo goor buu joojinayaa bas markuu badda ka baxuu joojinayaa waa aayadihii ugu horreey nebigeenna ku soo degay dadaalkiisa fikirkiisa dadaalka uu nebigu qaaday waxaa laga cabiray nin bad dhex dabbaalanaya axaadiiskaana dhegayso sakaraadkii markuu qabtay ayay tidhi faatuma waa karba abataax waa karba aabbahay waa kurbaysan yahay maanta markaa buu nebigu indhaha kala qaaduu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faatuma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysa aayaddii hore iyo xadiiska sasaar maxay ka dhigan tahay markaa xadiiskan baddii waan ka soo baxay hadda nasashadii raaxadii aniga ii bilaabmaysaa manhajka qofka muslimka laga doonayo inuu ku noolaado waa manhajkaas raaxa adduunyada nooma taallo tamatuc iyo tanacum gaaladaas iska leh muslimka adduunyada waxaa loogu talagalay inuu mujaahado iyo tadxiyo iyo dacwad iyo hijrad iyo nusrad iyo fikir iyo murug iyo amri bilmacruuf iyo nahyi can ilmunkar iyo tacliim iyo tasgiyad iyo tarbiyad inuu ummadda anfaca la doonaya qofka muslimka dadaalkaasaa walaa laynaga doonaya maanta innakana meel hoo u baahan hadal waxba kama taro doolliga waad aragtay jiirka iyo bisadda maxaa ka dhexeeya is arag habeen walba 5-6 bay cuntaa jiirkii baa tale iskugu yimidaa la yidhi waxay idhahdeen war sideen ku badbaadnaa waan dabar go-aynaabe
mid baa tala soo jeediyoo yidhi bisadda si loo garto shanqadheeda loo maqlo koorta geela aan koorta u sudhno ha la soo sudho buu yidhi galodeedaa la maqli deedna waa loo sii bannayn meesha waa laga yaaci buu yidhi amiirkii jiirka ugu sarreeyey baa yidhi taladaa waa tala fiican aad soo jeedisee laakiin kumaa soo sudhaya buu yidhi kumahe bali sheega kumahe kaa soo sudhaya isaga waa la cuni laakiin iyaa badbaadaya yah nuqsaan diineed maanta muslimiinta ma ka muuqataa mise kama muuqato bali sheega aad soo maha waad dareensannahay kulligeen waxaa la doonayaa maanta inaan raggii soo sudhay inaan noqona laynaga doonayaa jiirkaa soo sudhaya waa la cuni isaga waa la waayi khalaas laakiin ayaa badbaadaya ummaddaa badbaadaysa qisat alghulaam ghulaam xadiiskii saxiixa ghulaam inan yar boqorkii wuxuu ku yidhi aniga midda keliyaad igu dilaysaa waxa weeyaan dadka magaaladoo dhan soo saar anigana geedkaa igu xidh qaansadayda iyo leebkayga soo qaad markaad ganaysa waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam ku gan sidaasumaan kaaga dhiman buuhi anigu si kale kaaga dhiman maayo yarkaa muxuu doonayaa inay ummaddu hidaayo hesho inay ummaddu hada huwa tadxiya u dilay u dhintay kii yaraa dadkii oo dhan waxay idhaahdeen aamanaa birabbil waxaa la yidhi 70,000 bay haayeen baa la yidhi dakhaluu fi lislaam waxaan ka fahmaynaa axaadiistaas nabigeena sal lla ly slam haddaan doonayna ummaddu inay hidaayo hesho inay ummaddu xaqa fahamto inay ummaddu diinteeda u soo noqoto in muslimiinta ilaahay qur-aanka ku sheegayay inay noqdaan haddaan doonayno waa inaan diinta inaku aan waktigeenna maalkeenna aan u ogolaanaa da insha allah ayaa sidaa niyoonaya insha allah dhahada de insha allah dhahada de tii reer bani israa'iil maaha tii nebi ismaaciil insha allah di reer bani israa'iil tay hayd wa innaa in shaa allahu bacda as'ila tawiila markay su'aalo badan ay keeneen qaaluu idcu lanaa rabbaka yubayin lanaa maa lownuhaa maa hiya ina albaqara tashaabaha calayna markii u dambaysay yidhaahdeen wa innaa in shaa allahu laakiin nebi ismaaciil muxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii marka insha allah dateen doonaynaa marka tii nebi ismaaciil insha allah tii nebi ismaaciil insha allah dhahada allah ina barakeeyo dee ijtimaaci baa beri noo bilaabmaya khamiista jamaacadana way baxayaan insha allah sanad walba jamaacadadu way noo biirayaan 4 bilood 2 bilood alxamdulilah tuulooyinkii miigii meel walba jamaacadda la gaadhsiinayaa waktigaa nagu dheeraan axwaale cajiibaa nii bayaamin lahayne laakiin ijtimaaca laynigu dhex bayaamin doonaaye bal ijtimaaca inuu 4 bilood ama 40 ama 2 bilood inuu ka baxo ayaa niyoonaya insha allah gacantuna taago maskiidko dhan boo diyaar bal ku celiya xuseena arkee qoraalba uma baahnaba ya salaam ilaahay anuu dembi dhaafo dembigeena allaha dhaafo اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على نبينا محمد